بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن بدن واحد مغليسين لما كان خوارج تأه وكوها يا نبي الله محمد صلوات الله وسلام عليه wax sadaqa uma baahna sadaqada nabi maxamed xaraan bay ka ahayd sidaas darteed maalkan dadka laga aruurinayo wax ka jira male waa xaraan ayaad waxaad maqasheen in badan baad maqasheen waxaana kamid ah dadka waxyaalahaas dhahayo kuwan qodobka saddexaad waxa la talayo waxa loo leeyahay waa sadaqa soma sadaqa ma tahay soma ma sadaqada kowdi bisoo fantasiyo وصدقة صومها نبي محمد صدقة معوني جري صدق النور مش معوني جري حرام بك يا صدق يا ابو صدق يا شاد الله نبي مش صدقة تروح حمله صدقة هو اوساخ الناس ان النبي يا البيت ولا ممنوع ان الاله يكبق هين واله اين كحشون هين حولها حق اخر لقينا هي xoolahan su'aasha ka iimaanaysa aakhiro xagee qabadsiinaysaan caamigan laga qaadahayo oo waxba ogeyn oo la yiri nabigi baa lagu weyneynayaa nabiguna bari uu ka yahay war aakhiro xagee qabadsiinaysaan war dadka waxaan u ololeynayo ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada wax aan diin ahayn maalinkaas walluusan maanta diin noqonay ilaahay ka cabsada meesha u baahan hantida in lagu bixiyo waa masaakiintaas wabiyadu ku fataheen oo banaanada dhooman sadaqada aad bixinaysaan ayaga siiya ayaga idin ka mudan nabi maxamed alayhi salatu wasalaam sadaqa uma baahnayn hayyan wa mayitan minna uma baahna nabiga alayhi salatu wasalaam nabiga isagoo nool baa sadaqadii laga xarimay isagoo nool dhintay maxaad moodaa walkaana aan ka soo gadanay lacagtaan ku soo gadanay waana sadaqaynaa intiitaa hilibka soo doonta waa sadaqo waxa weeye nabiga lagu maamuusayaa ninka ka hadli kara ee diinta islaamka adduuniyada kitaabka ka been sheegayana anaga ugu run sheegayn eedaasu lacag la'aan baanu siinaynaa maraqiisa hilibkiisaba hoos ha loo soo eego ha la fiiriyo xeertaan ka warunin lacagtaas iyo axbaabtii caashiqiintana ayaan ka qaadnay waxaan leenahay ha la farxo mawlidka ha la dhigo geela intaa dhan ilaa bishu ka dhamaato wuu soconayaa ee 1200 dhaafay waa jamaacatu mustafa iyo caashiqiinta nabiga calayhi salaatu wasalaam weeye waa soo daawatay baan filayaa haddaba waxaan rabnaa inaan jawaab siino dhinacna inaan tacliimino oo tacliim diini ah aan u siino fursad inay wax bartaan ay wax fahmaan marka koowaad waxaan rabnaa inaan su'aalna weydiiyo kadibna aan annaguba ka jawaabno waxaas eedaynta oo nala soo jeediyay su'aashan weydiinayna waxa weeye ma noo sheegi kartaan meel lagu yiraahday sadaqan rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi siinayna ma noo sheegi kartaan cid tiraahday sadaqan rasuulka siinayna ma noo sheegi kartaan meel goob laga yiri sidaas ama cajal ha ahaado ama video ha ahaado ama qoraal ha ahaado ma haysaan haddaba soo lama oran karo waxaanu waa been abuur ilaahay wuxuu yidhaahday kuwa dhibahaya muuminiinta iyo muuminaadka kuwa dhibahaya waxay qaateen oo saarsadeen abuur wey cad bay qaateen wey waa khatar wey qof muslima inaad ka been sheegtid waa halis wax sahlanna maaha waa dembi weyn wey haddaba marka waxaan leenahay warkaas eedaynta ah loo soo jeediyey oo la yiraahday nabi maxamed bay sadaqa siinayaan taasu been abuur weeye waa sheegnay mana aha nabi maxamed wax aan sadaqa isaga siinayno laakiin waxaan sadaqada u bixinaynaa nabi maxamed dartiis iyo dadka mu'miniinta ah oo meeshaas isugu yimaaday rasuulka saligiisa iyo siiradiisa iyo macnaha ijtimaacaas dadka isugu yimid ayaa sadaqada la siinayaa nabiyullaahi maxamed dartiisaana sadaqada loo bixinayaa marka taas waa shay bannaan wey nabi maxamed sadaqa la siiyey maaha nabi maxamed dartiis iyo dadka mu'miniinta isugu imaada baa loo bixinayo waxaa kaloo cajaa'ib leh nabiyullaahi maxamed baa wuxuu yidhaahday min abaral birri an yasila rajulu wudda abiihi buu yidhi rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh baarinimo midda ugu baarisan oo qofka baarinimadiisu midda ugu sarraysa ah qofka inuu xiriiriyo waaye waalidka qofka uu jecel yahay yacni inuu xiriiriyo waalidkaa oo kale xiriirintiisu waxa weeye hadduu dhinto waalidka dadka waalidkaa uu jeclaa inaad xiriirisid weeye tan ugu wanaagsan xiriirkaas weeye haddaba nebiyullaahi maxamed cidda uu jeclaa yacni in la xiriiriyo adduunka intaad joogtid haddaad xiriirisid baarinimo midda ugu wanaagsan bay la mid tahay oo nebiga yacni masaakiinta iyo fuqarada iyo mu'miniinta intaba wuu jeclaa nebiyullaahi maxamed marka intaas in la nafaqeeyo oo wax la siiyo oo laga farxiyo oo dacaam la baxsho yacni wax wanaagsan wey mideeda kale sadaqo ma taqaanaan horta sadaqadu ma taqaanaa waxa la yidhahdaa xagga sharciga sadaqada sharciga waxaa la yidhahdaa barta oo kullu cataa'in
يقدم للمحتاجين والفقراء بنية التقرب إلى الله بالإرادة على دها صدقة وشيء كستو الله بحيه الله سيو دتك أباهن مركا إيو دتك فقراء محا الله بحنايا بنية التقرب إلى الله إلهي بلو قد وانايا صدقة وحا الله بحيا وحوية إلهي درتيس أي الله بحنايا هذا قف عادي سينيس وإلهي درتيس هذا دينته أتكون بحنيس وإلهي درتيس وحول بوا إلهي درتيس وح الله بحنايا مركا شيء النوع عاصو كلو إلهي درتيسه ثواب أجر وين بالغيه لايا إلهي سبحانه وتعالى وحي إراده لن تنالوا البر وناك جار ميسان حتى تنفقوا انت هتكب حسام مما تحبونه متك waxaad jeceshiin inta aad ka bixisaan saxaabiga Abu Dalha bay ruuxa beer la yiraahdo aad u qaalisanayd oo yaani Madiina beerta u qaalisanayd oo rasuulka xataa uu biyaha ka cabi jiro jeclaa beerta ayada ahayd buu bixiyay ayada markay soo degtay marka waa beer aad qaali ah marka sidaas darteed waxa ogaataa qofku hadduu wax la baxo geel xoolo wax la baxo lo'da iyo ariga iyo waxa uu qaalisan geel way marka geel hadii la baxay oo ciidu sadaqa oo la baxday adigu hadda xaasid nimadaadu macna keenay mayso way waxa la yiraahdaa qofka saxiixa ah qofka kale waxa uu bixinayo nacib yahay kuwan khawaarijta waa saxiixin waxay diidayaan qof muslima yaani neef geel waa shay ugu qaalisan oo la bixiyo maanta neef geel ninka bixinayo bay dhibsanayaan markaas macnaha waxa weeye waxay leeyihiin sida munaafiqiinta inna allaha ghaniyun an sa'i hada munaafiqiinta markii dadkii muslimiinta ay sadaqada la baxayeen ayaa nin maskiin oo yaani tabartiisuba ay tahay hal suus ama hal combo oo badara ayuu baxsaday markaas ay caayayaan leeyin fiiri in allaha ghaniyun an sa'i hada war midka xunka suuskiisas ilaahay gani buu kay wax ku falayaa bay leeyin kii wax fiican oo xoog la baxana waxay leeyihiin hada muraan mid istusaya midkan waa istusaya dadku istusaya inuu wax istusaya marka meel ay uga baxsanayaan ma jiro sidii oo kale weyn marka waa munaafiqiin oo yaani dadka muslimiinta lagu diray munaafiqiintana awalba asxaab rasuulillaah bay isaga dhex jireen yaani nabi maxamed iyo asxaabta wasaasi u dhibi jireen aflagaadada suuq u galin jireen kuwaana waa munaafiqiin kale oo dadka ahlu sunnaha loo diray inay maanta dhacayaan wax ka sheegaan ficiladooda daba galaan shaqo kale ma leh shaqadoodu waa munaafiqnimo iyo dadka inay isku diraan sidaas weeye oo sadaqadu waa shay waasic oo ballaaran nabi maxamed markii waxa loo diiday sadaqada loo diiday waa zakada awsaakhu naas dadka wasaqdooda waa wixii zakada ahaawe ma ahan sadaqa mutlaq oo dhan in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi aysan yaani xaraan tahay tusaale laba xadiis baan yaani siinaya غزودي فيسكي خندق la qodahayay يوم الأحزاب خندقي godkii weynaa dhufayska markii la qodahayay ayaa Jaabir u yimid rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu ku arkay gaajo daran buu ku arkay oo nabiga caloosha dhagax ku xirtay markaas xaaskiisu u tagay wuxuu ku yiraahday rasuulkii xaaladiisu aad bay u adag tahay maxaa haysaa waxay tii neef yar oo guriga jooga iyo macni suus yar oo wax yar oo koomba ah oo badara ayaan hayaa raashin ah markaas wuxuu yiraahday hadaba neefkii uu soo qabtay neefkii uu gowracay uu harag bixiyay uu jarjaray hilibkii dhergii buu la saaray bahalkii buu u shiiday diyaal ku ran yahay bur ahaan iyo waxa looga sameeyay waxay tiraahday marka han ceebayne waxaad u yeertaa rasuulka iyo dhowr nin oo kale hanugu ceebeen waxaanu dadka ma deeqaane meeshana hadda cadadka ya jooga hadi ma uu soo baxay rasuulka ayuu u yimid wuxuu ku yiri rasuulka ilaahay waxa xaaskii waxaan sameynay wax yaroo waxaan neef yara aan gowracnay iyo wax yaroo yaani koomba raashine intaasaan isku habeynay adiga iyo dhowr qof oo kale imaada buu ku yiri isla markii rasuulka sallallahu alayhi wasallam cali meeshii buu ka dhawaaq yaa ahla qandaq wargodkan iyo dhufayskan ehelkiisa wariyay ooy asxaabtii dhan buu u dhawaaqay inna jaabiran qad sana'a lakum su'ran buu yiri war jaabir wuxuu idin sameeyay sooriye soo bax wixii uu ka baqay baa ku dhacay bogsood islaantii ay ka baqays markaas soo cararay islaantii buu yiri inkaar ku dhacday maxaa saan u yeeshay buu yiri bay ku tiri aniga hadda inta ay sheegtay baan sheegay rasuulka sidaan yiri rasuulka marka inta kale waxa weeye ujeedkeeda iyo ma dhamaystirayo laakiin maxaan ka soo wataa rasuulka sallallahu alayhi wasallam cuntadii maalinka loo sameeyay iyo asxaabta loo sameeyay macnaha sadaqa uma ahan miya yani ninkii Jaabir ahaa sadaqa uma ahan miya jawaab adinka lan ka rabaa ma waxa way wax aan ajar ah wax ajar uu ka helayo male sadaqana ma ahayn miyaad leedihiin taas waxa nabiga laga reebay iyo waxa nabiga laga reebin horta inaa kala fahantaan oo cilmi iyo aan idin faa'iideynaa rabnaa marka macnaha juhalatiin maqsuud ka taas waxa way tusaalan ku siinaya tusaalaha labaadan ku siinaya waxa way nabiyullaahi maxamed
sayid abubakar iyo sayid cumar ayaa gaajo xun la soo baxay maalmaha ka mid ah nebi maxamedna gaajo daran buu la soo baxay nebiga marka wuxuu la kulmay sayid cumar iyo sayid abubakar markaasuu wuxuu ku yidhaahday war maxaa idin soo saaray markaasee waxay dhaheen waxaana soo saaray gaaja wallahina soo saartay guryihii waa la hoyan weyna gaajada rasuulkana wuxuu yidhi wixii idin soo saaray annay soo saaray gaaja ay haysee ina keenaba nin ree ansaara ayuu nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh gurigiisi tegey xaaskii baa joogta aawe hebel waa maqan yahay biyuu noo doonay macaan haye intii meesha la joogayba kor buu ka arkay nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh iyo labadiisii saaxiib buu meesha kor ka arkay wuu soo orday waa yimid maanta wax iga marti fiican male buu yidhi maanta marti ka fiican anigu wax iga marti fiican male buu yidhi markiiba wuxuu sameeyey wuxuu u keenay geed laan timirahoo isugu jirta busri iyo tamri iyo haddii rudab isugu jira ayuu u soo qaado u keenay markaas wuxuu ku yidhaahday mindi buu dafay meeshan ka dafay wuxuu yidhi macnaha waxbuu soo gowracaya rasuulku wuxuu yidhi wa iyaaka walxaluub war kuwa macnaha neefka irmaanka ah ha isku taaban buu yidhi neef irmaan aha reerkaa ka gowraci saxaabigii neef buu qaatay wuu gowracay waa waxeeyey cuntaa loo sameeyey nebiyullaahi maxamed iyo sayid abubakar iyo sayid cumar waa dhergeen markii dhergeen kabacdi ayuu rasuulku wuxuu ku yidhaahday adinkoo oo gaajaysan oo gaajo idin haysa ayaa timaadeen haddana adinkoo dheregsan baa baxaysaan wuxuu ku yidhahda rasuulka alla tus'alunna yowmaidin cani naciim wallaahi qiyaamaha waa laidin su'aalahayaa nimcadan ayada ah xoogaa ka hor waa gaajaysaneen haddana waa dheregteen haddaba waxaan rabaa marka inaan dhaho nimanka khawaarijta ah sadaqa ma ahan miya ninkaa saxaabiga waxa ula baxay oo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh martaqaadka ugu sameeyey iyo ninkii la ohan jiray labadana saxaabi oo kuwa ugu qiimaha badan ah ummatulmaxamediyada dhammaantood yacni sadaqa ma ahan miya oo waxay iska taha fataatiir miya marka hortooda diinta inaad barataan baa muhiimeh nebiyullaahi maxamed wax loo diiday oo yacni haddii alla kuuraya uusan qaadan jirin waa awsaaqunaaski weeye waa zakadii iyo wixii la midka ahaa weye waxaas weeye ee waxaan kale wax dhiba ma lahan weye marka tanna cilmi ahaan u qaato oo aqoon ahaan haydin kaafiso marka haddii aan ku soo socdo wixii aan ka bixinayo sadaqa maxaa la yidhahdaa sadaqada waxaan soo nidhaahnay alsadaqatu fi lislaami kullu cataa'in yuqadamu lilmuxtaajiin muxtaajiinta waa qofkii u baahan nebi maxamed iyo sayid abubakar iyo sayid cumar markaa waa baahnaayeen baahi baa hayse muxtaajiin bay ahayn fuqara ma ahayn waalfuqaraa qolada fuqaradaana sidoo kale yacni biniyati taqarubi ilaahay baa loogu dhowaanayaa ninkaa saxaabiga markuu nebi maxamed iyo sayid abubakar iyo wuxuu soo dhoweynaya ilaahay buu ugu dhowaanahay sidaas weeyaan iyadana markaas waxaa la bixinaya marka maxay noqonayaan marka sadaqada ah shayga sadaqada inaa marka wax ka ogaataa la rabaa sawaa'an kaana maal ha ahaato ow dacaaman cunto ha ahaato cuntadu waa sadaqo laftigeeda aw hiyaaban dhar la bixinaya ha ahaato waa sadaqa laftigeeda aw ficlan dayiban ficil wanaagsan ha ahaato waa sadaqada ayada olso ayadana sidoo kale kal kelimati alxasana kelimada xasankaah wanaagsanna ayadana sadaqa waaye laftigeedu waa sadaqo oo musaacadat alaakhariina dad kale ood markaas kaalmaysidna waxay ka mid tahay waxyaalaha sadaqaday ka mid tahay wayuqsadu bihaa naylu lajri wathawaabi min allahi tacaala sadaqada markii loola baxayo maxaa waaye ujeedka loola qasdaayo qasadkeedu waxa weye inaad ajar heshid iyo thawaab ilahay xaggiisa inaad ka heshid sidaas wey wax loo qasdaayo wey iyo walfawzu in lagu liibaano bimardaati illaahi tacaala fi dunya waalaakhira adduunka iyo aakhiro ilaahay raallihaanshihiisa in lagu liibaano intaas weeye wax loo bixinayo marka qofkii nebiyullaahi maxamed ziyaaradiisa iyo xuska rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh wax u bixiyey wuxuu u bixiyey wax kale ma ahan nebiyullaahi maxamed dartiis buu u baxshay nebi maxamed dartiis inaa ula baxdid xaaraan ma ahan nebiyullaahi maxamed dartiis in sadaqa loo bixiyana aysan bannaanaynna ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo khaaliqii ahbaa wuxuu ku leeyahay waryaa amaahinaayo amaah wanaagsan ma ilaahay baa amaah kaaga baahan ilaahay baa dhaqaalo kaaga baahan khaaliqii baa wuxuu ku leeyahay macna waxaa lagugu dhiirigelinayaa shayga sadaqada ah inuu wanaagsan yahay inaad la baxdid wey waxaan ku soo koobahayaa sadaqada mawliidku waa shayga ugu fiican nebiyullaahi maxamed oo khayru khalqillaahi wax dartiis loola baxo waxa weye sadaqadaas way ka sii fadli badan tahay sadaqooyinka kaleo dhan way ka fadli badan tahay nebi maxamed dartiisaa loola baxay wax ilaahay dartiis loola baxay wax walboo dhan bay ka fadli badan tahay nebi maxamed wixii loola baxayna nebi maxamed wax kasta oo dhan bay ayadana ka fadli badan tahay sidaas weeyaan marka sadaqooyinkan kaleo caadiga ah la mid ma ahan nebiyullaahi maxamed dartiis haddaa ula baxdo wey marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobaya waxaan isleeyahay khawaarijtu cilmina halkaa ha ka faa'iidaan
beentoodina halkaa ha ku baaba'do dadka la siraayo la leeyahay nebi maxamed waa dhinto sadaqa lama siiyo mana qaato dee nebi maxamed cid sadaqa asaga hadda siinaysa ma jirin marka gaalada la yidhaahdo maa salakakum fii saqara war maxaa naarta saqaraa idin geliyey markii la yidhaahdo ay leeyihiin ma aanan tukan jirin waxna masaakiintana wax kuma aan sadaqaysan jirin marka maanta waxa la yaab leh masaakiintii oo wax lagu sadaqaynayo ninka dhahayo maxaa sadaqada loo bixinayaa ninkaasu ma khayr buu wadaa mise shar buu wadaa ma halaag buu kuu wadaa mise wax wanaagsan buu kuu wadaa xaqiiqa markii la yidhahdo halaag buu kuu wadaa haddaba ogow nin walba inta aad ka wax bixin fiican tahay nebiyullaahi maxamed dartiis nebi maxamedna waa uga dhowdahay ilaahayna waa kaaga raalli noqonayaa taa hortana ogsoonow insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu